Assalaamu calaykum. Mawduuceena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa mowduuc aad uga duwan mowduucyadii hore oo aan halkan idinkugu soo gudbin jirnay. Mowduucan waxa uu ku saabsan yahay bisha fadliga badan ee Ramadaanka. Bisha Soon waxaa loogu magac daray bishii Qur'aanka, taasoo macnaheedu tahay in Qur'aanka la soo dejiyey bil Ramadaan ah, taasoo ku cad aayadda Qur'aanka ah ee shahru Ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaas. shahru Ramadaan, bisha Ramadaan, alladii taasoo unzila aan soo dejinay unzila fiihi dhexdeeda aan ku soo dejinay alqur'aanu qur'aanka hudan linnaas, qur'aankaasoo dadka hanuun u ah. Waa bil uu alle furo albaabada jannada uuna xiro albaabada naarta. Waa bil abuura midnimo iyo iskaashi. Haddaba sidaa darteed, asxaabtii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee sharafta badnaa waxay ahaayeen kuwo si xiiso iyo farxad leh ku qaabila bisha Ramadaan. Aad ayayna ugu farxi jireen markay u dhalato bisha Ramadaan. Dhinaca kalena waxay jeclaan jireen inuu sanadkoo dhammiba noqdo bil Ramadaan si ay uga faa'iidaystaan fadliga Ramadaanka. Ereyga soon waa erey asal ahaan Carabi ah, macnaheeduna waa hadalka af-xirasho, waxaana laga fahmi karaa qoraahdii uu Alle subxaanahu wa tacaala ku yidhi Maryama bintu Cimraan oo ahayd: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. waxaad tiraahdaa, waxaan Allah subxaanahu wa tacaala ku sharday inaan hadalka ka soomo oo cidna lama hadlayo maanta. Haddii aan ka eegno macnaha xaqiiqada ay xambaarsan tahay, waa iyadoo laga af-xirto wax walba wixii soonka afuriya ama buriya ee ficil iyo oraahba ah. Soonku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood, kuwaasoo kala ah mid waajib ah iyo mid sunno ah. Soonka waajibka ah ayaa wuxuu usii qaybsamaa ilaa 3 qaybood oo kala ah: soonka bisha Ramadaan, soonka kafaaraqaadka, iyo soonka sharadka. Xigmadaha soonka lama soo koobi karo. Ujeedooyinka iyo xigmadda soonka ka dambaysa waxaa ka mid ah in loo hoggaansamo amarka Alle, iyo in dadku ay dareemaan gaajada iyo darxumada si ay u xasuustaan Khaaliqooda abuuray, sidoo kale inuu ugu naxariisto fuqarada. Ujeedooyinka soonka waxaa ka mid ah in uu Alle simo dadka, kan taliya iyo kan loo taliya, kan maalqabeenka ah iyo kan saboolka ah, si ay wadajir u dareemaan gaajada oo ay u wada sooman yihiin. Soonku wuxuu dhaliyaa midnimo, isjacayl iyo iskaashi. Sidoo kale waa cibaado laga doonayo qof kasta oo ka mid ah muslimiinta, misna qaangaar ah, kaasoo buuxinaya shuruudaha soonka. Soonku waa waajib sida laga fahmi karo kitaabka Qur'aanka iyo sunnada Nebiga sallallahu calayhi wasallam. Alle wuxuu Qur'aankiisa ku yidhi: yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. Dadkii Alle rumeeyow, waxaa idinku waajibay inaad soontaan sidii dadkii idinka horreeyeyba loogu waajib yeelay, waxaadna mudan tihiin inaad dhowrsataan. Intaas ayaan ku soo afmeerayaa qaybteennii koowaad ee fadliga soonka. Insha Allah, qaybta labaad ayaan kasii bilaabi doonaa kulantideenna dambe, maxaa yeelay waxyaabo badan oo aanan halkaan ka sheegin ayaa inoo harsan oo soonka ku saabsan. Allahumma ballighna Ramadaan. Aamiin.